kulankan ololaha wacyigelinta ee geedi socodka dib u eegista dastuurka qaranka ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk Soomaaliya waxaana maanta ka qabsoomay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana sidoo kale qayb ka ahaa mas'uuliyiinka kala socday dowladda federaalk Soomaaliya iyo ka maamulka Hirshabeelle. ka qabsoomida Jowhar ee kulankan ayaa qayb ka ahaa olole heer qaran ah oo lagu wacyigelinayo bulshooyinka Soomaaliyeed kaasoo lagu qabanayo dalka oo dhan waxaana ka kooban yahay shirar wada tashiyo kulamo wacyigelin ah. bulshada qaar ee ka soo qayb gashay kulanka ayaa su'aalo ku saabsan arrimaha dastuurka iyo maqaamka caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay ka weydiiyeen agaasimaha waaxda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdinaasir Xaaji Maxamed. Muqdisho waxa ku nool 3 milyan oo Soomaaliya ku nool waxay u baahan yihiin xuquuqda ay leeyihiin maamul goboleedyada kale u baahan yihiin waliba waa ka badan maamul goboleedyada kale waa ka tiro badan waa ka badan yihiin Muqdisho Soomaaliya waa ku nool waxaan rabnaa dowladda federaalka dhowr jeer ay ku dhex jirtaa arrintan ma suuragelin maqaamka Muqdisho la madax banneeyo waa 18 degmo Muqdisho haddii maqaamka Muqdisho laga rabo waxaa ku filan xaafadda wixii kaliya ku filan maqaam ah oo hadda caasimadda madaxtooyada ay ku taalo amba degmo kamid ah qaad kartaa waxaan rabnaa si dastuurka dhameystirkiisa soo bilowda 2012 weli taagan yahay inaan laga dhigin maqaamka Muqdisho. waxaan aragnaa maalmahan dambe madaxda isteediyada qaar inay la tirsanayaan madaxweynaha qaranka Soomaaliya ma jiraan qodob dastuuriya oo kala saaro madaxweyne federaal ah iyo madaxweyne head state wax kala xadido kala saaro oo ku qoran yihiin dastuurka intaas ayaa su'aaliga waxaa jira wadamo aan darisnahay dastuurkooda kuma qorna qondo haween kuma qorna haddana boqolkiiba 53 haweenka ayaa buuxiya meel kasta waxaa loo baahan yahay horta waxna idiin siiyo xuquuqa u leeyihiin dastuurkii ku qormi doontaan laakiin dadaal dheeri inaa muujisaan horta ayaa uga baahan yahay oo aydan sugin wax idiin hibeeyo inaan sugin gabdhihiin iyo wiilashiin aad u siintaan waxbarashada iyaga ayaa booskaas ku buuxin doonta. Cabdiqani Cali Aadan agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedka kulankani. barnaamijkan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 maalin ah oo maanta ay koow noo tahay 1 March 2020 ilaa 3 March waxaanu ku soo bandhigi doonaa cutubiyada dib u eegista lagu sameeyay oo ay nala joogaan khubaro ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha arrimaha dastuurka iyo arrimaha cadaaladda ee heer federaal iyo guddiga doorashooyinka qaranka waxaa la inii qeybiyay ajandaha oo aad haysataan 16 cutub ee dib u eegis lagu sameeyay inaad ogaataan qodobada aad isleedihiin waxay u baahnaayeen in wax laga yiraahdo isla markaana dadka heer Hirshabeelle aragtidooda aad maanta aad cabirtaan maadaama aad noqoteen dadkii Hirshabeelle ku matalayay maanta barnaamijkan dib u eegista dastuurka oo ah arrin masiiri ah waxaan rajaynayaa dadka in muuqda inay matali karaan dadka reer Hirshabeelle oo ay aragtidoodana soo gudbin doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dastuurka ee Hirshabeelle xildhibaan Saadaq Mukhtaar Cabdulle ayaa ugu dambeyn kulankan daahfuray. arrintan arrin aad noo taabanayso way in badan waxa la weydiiyay dastuurka dawlad goboleedyada kala waa looga hadlaa waa la geeyaa heer Hirshabeelle xaqi ay u lahaayeen inay fikirkooda ku ururiyaan halkaas maanta waxaad nasiib u yeelateen barnaamijkan oo in badan gradual process ku soo socdo dawlad goboleedyada inteeda kale tood waxaan u maleynayaa in la tagay inuu maanta idin soo gaaro ayaad nasiib u yeelateen adinkana waxaa idinka rajaynayaa maadaama arrinta arrin masiiri ay tahay in maadaama odayaashii dhaqanka ay joogaan culimada diinka qaar kamid ay joogaan ururadii bulshada ay joogaan aan aaminsanahay in inta kale ee reer Hirshabeelle aad matali kartaan waxaan rajaynayaa inaad wax fikir aad haysaan aad 3 maalin oo shirka oo socdo aad halkan ku aruri doontaan si inta kaleentood dhiman ay ugu qancaan inaad halkan wax fiican aad ka sheegteen
inaad halkaan fikirkiina si fiican aad ugu dhiibateen marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa waqtiga oo aad u yar awgiis aadaan idinkaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad kasoo qaybgalkiina sida sharafta leh oo quruxda badan ee aad noo dhegaysanaysaan inaad sidiina usii wada doontaan ayaan rajaynayaa hadduu alla yidhaha shirkan waa noo furan yahay Xaliimo Cali Ibraahim, Dalka News TV, Jowhar.